Ku soo dhowow qaybtii labaad ee buugyarihii gunaanad. Ilbidhiqsi muddo aan ku qiyaasay kadib ayaa aan soo baraarugay. Waxa aan markiiba ku hamanbaray eegidda goorsheegta. Waa 4:00 aroornimo. Haddana waxaa dhagahayga soo gaadhay dhawaaq. Mise waa eedaankii salaad subax. Saaka sidii caadada ii ahayd cidna iima toosin in aan guto waajibka i saaran. Sidii caajis iyo cagojiid lama silcayo. Sidii oo aan cid sugayay ayaa aan sariirta ka booday. Qalow. Waa rukunkii sariirta oo dhammaantii ka soo dhilmaday musbaaradii sariirta. Damba kama gelin oo waxa aan u dhaqaaqay si aan iskugu diyaariyo gudashada salaada. Kadib weyso qaadasho iyo isku maridii macawista sarandaha iyo dhammaystirkii xidhitaanka badhamada shaadhka gacmo dheeraha iyo dulka gashigii funaanada madow ee isboortiga ah, waxa aan u dhaqaaqay dhanka uu albaabka dibaddu iga xigo, aniga oo abbaaraya waddada qarfaha ah ee tagta dhanka uu masaajidku iga xigo. Mugdi dhanka bari ka soo badhaxmaya ayaa fidsan. Dabayshii iyo qabowgii weli sidii ayaa ay heegan ugu jiraan, oo dhaxantu lafahaaga yuruursanay, dabayshuna dhas kugu maydhay. Dhulku sidii ayaa uu oomane u yahay, oo uu soo fiiqayaa dhagaxaan cidhbaha ku jaraya, marna hadduu doono, dacas ka dhammaaday kaala hadhayaa. Aniga oo baaloday moonaya, dhaxan calaacalaha iskugu xoqaya, lugta bidixna ka dhitinaya, ayaa muuq aadane laab iga horreeya ka soo mudhiyidhi. Waa uu tallaabo dheeraynayaa, oo uu u jeedaa dhanka masjidka, oo uu ku hagoogan yahay wax aan u maleeyey go. Waxa aan maleeyey socodkaas, muuqaas awoodda daran iyo qalaafahaas. Malaha waa jaamacii. Waa aan u dhawaaqay, oo uu joogsaday. Dib ayaa uu ii soo eegay, oo uu magacaygii iigu jawaabay. Malahaygu waa uu saxan yahay, oo waa jaamac. Waa aanu isku sii lug darsannay jaamac, oo aanu isku fasalnahay. Waxa aan ka waraystay wixii ka dhacay fasalka kadib markii aanu isku gacan qaadnay aniga iyo Xirsi ayna la eriyey. Waxa uu ii sheegay in la soo celiyey Xirsi 2 saac kadib goortii lana la eriyey labadayadaba. Waxaa waday oo soo celiyey walaalkii kii geershka haystay. Maamulihii ayaa uu laaluush iyo maslaxaad uu isugu daray Xirsi walaalkii kii geerashka haystay. Yaab iyo fajac. Muxuu ka wadaa laaluush? Ma lacag ayaa uu siiyey? Nacdali ku kortay maamule Rashiidow. Soo ka aabbahay ka qaban waayey taleefanka. Anigana igu ganaaxay in aanan bil fooda soo gelin karin dugsiga. Soo ka markii aabbahay ugu yimi xafiiskiisa u sheegay in aan ardaydii kala badlaayay, akhlaaq xumana u horseeday dugsiga sharfan sida uu isagu ku tilmaamay. Ee aabbahay oo war xun ka dhaansan, bakooradiisa iga waraabiyey ilaa uu canqowga iga la eegtay bakoorad lalaysa. Lugta aan hadda ka socon kari lahay, xalayna ka seexan kari waayey kaarkeeda. Wacnaan lahaydaa in uu intaas igu daayo. Waxa uu goostay oo uu igu qasbay in aan booqdo tuulada reer abtigay. Isla caawana aan soo goosto tigidhka baska tegaya berri ee u baxaya dhanka bari. Oo aan reer abtigay xoolahooda la soo dhaqo, intii aan gurigiisa fadhiyi lahaa, bariiskana aan ka cuni lahaa, aniga oo waxba u tarayn. Oo waalidka reer guuraaga ahi waxa uu aaminsan yahay in ubadka loo quudiyo loona korsado si ay masruufaan. Dib kolka ay tamar dhigaan ay haddii ubadku khaladaadka ay aadanaha u yihiin ka dhacaan, waxa uu xasuusiyaa in uu ku tacab iyo tamar beelay si uu u noolaado. Haddii ay dood ka keenaan wax aan u cuntamin, waxa uu u sheegaa markii uu dhidayay si uu quud ugu keeno, in wax doorasho ah uusan lahayn. Haddii uu ka warceliyo doodahaas, oo uu u sheegto in uu isaguba dalban in uu dhalo, waxaa saaran waxa uu gacanta ku hayo. Oo waalidka reer guuraaga ah, in uu koriyo ubadkiisa sida ugu wanaagsan isaga oo u rajaynaya mustaqbal wanaagsan, isaga oo ka dhowraya hadallada berri geyaysiin kara in uu si uusan mahdin uu ula dhaqmo, in uu u koriyo si ay berri madaxiisa kor u geeyaan, si uu u aayo, ummadduna haddii uu hoydo mar walba loogu duceeyo, oo waajibka ka saaran ubadkiisa uusan ugu manno sheegan, waxa uu arkaa jileecnimo iyo korin aan loo baahnayn. Ma waxa uu ii dhalay in aan hadhow quudiyo? Ma ubad aad dhashay ayaa loo quudhaa in aad ugu galad sheegato in aad quudiso? Waa reer guuraa iyo caadadiisa guraacan. Wax aanu ku sii sheekaysanno waddada waxaa mar wada kowsaday aqinkii iyo ilbidhiqsigii aanu kadinka cagta soo saarnay. Waxa aanu u soo guclaynay aniga iyo jaamac dhankaas iyo safka koowaad. Se odayaal iyo carruur ayaa iska buuxiyey oo waxa aanu iska cidhiidhsannay safka labaad. Imaamkii xidhay salaaddii tii labaad rukuuc salaanaqsay. Kadib gudashadii salaad subax, salaad ogayaashii waxa ay u dareereen dhanka albaabka masaajidka. Kolkii hore waxa ay u soo wada kicitimeen si ay waajib isku mid ah iskaga rogaan, oo niyaddoodu isku mid ayaa ay ahayd kolkii ay soo abbaarayeen gurigan barakaysan. Sida ay ugu kala duwan yihiin dushooda ayaa ay ugu kala duwan yihiin noloshooda.
waxaa isdhex qaadaya ka dhaxanta ka ordaya ee raba in uu dib u kulaalo furaashkiisi dugsoonaa. Mid u kicitamaya sidii uu u soo dhacsan lahaa wixii uu jiniinka marin lahaa si samaan ama si loon ha ku soo helo iyo mid sida aniga oo kale safar u qoshaysan yahay. Berigii hore sidii u caadada ahayd reer guuraaga waxa ay guureen jireen goorta aan la kala sooci karin humaag iyo noole. Waxa ay aaminsanaayeen in habeenkii uu dhulku isku soo aruuro oo masaafadu soo koomayso. Se hadda kolkii magaalada la soo galay ee la helay gaadiid ka tayo wanaagsan, xoolihii aanu rari jirnay iyo dhaynayaashii dushiisa la istuumin jiray iyo waddooyinka hagaagsan, waddooyinkii tusaalaha lagu bixin jiray goorta la rabo in la fahmo macnaha jidka siraad, waxaa la socdaalaa inta qorraxdu qabowdahay. Aniga oo degdegaya oo tallaabada hoos ka xadaya si aan isku diyaariyo wixii dhulka iga yaallana aan u habaysto, ehelkana inta aan ka gaadho aanu isnabadgeliyeyno. Walow aan necbahay nabadgelyeynta si kedis ah, waxa aanu u kulannay nin ka mid ah dadka aanu isku deegaanka nahay oo markaa dusha aanu iska naqaano. Mar haddii aanay dadku is aqoon sida ay isku garab dhaafaan aniga oo u dhaqmaya, ayaa uu salaan ii soo taagay. Aniga oo yaaban ayaan sida waajibka ah salaantii ka qaaday. Ninkaasi intuu dheer yahay ayaa uu haddana miiqan yahay. Korkiisa waa aad ka dheehan kartaa in ay haystaan mashaakil nafsiyeed oo indhuhu hoosta ayaa ay ka bararan yihiin, daamankuna godan yihiin, timahana aad moodaa qof madaxa xanuun kaga dhacay oo timuhu waa ay ka fagmeen oo uu ka laalaadaa shaadh cad oo uska ku dhammuuqan yahay iyo surwaal jeemis madow caddaaday ah. Ka garan maysid tahriibe dhowr sanno ku dhex lunsanaa badda si hadda beriga lagu soo celiyey. Ismarxabayn kadib waxa uu ii soo bandhigay ay wacnaan lahayd in aanu isku raacno maqaaxi in markaa aan inaga fogeyn oo iiga warramo arrin uu markaas iigu sheegay in ay tahay arrin muhiim ah. Laakiin maadaama aan safar ahay oo aan degdegayo, waa ay iigu adag tahay in aanu soo wada shaahno isla markaasna ka dhegaysto arrinkaas. Oo waxa aan uga cudurdaartay wanaagsanaantaas uu ii muujiyey si ay ku dheehan tahay xushmad, oo aan u muujiyey in aan aad uga xumahay haleelid la'aantaas, uguna daray hadalka cudurdaarka miidhan ah in aan tuulo dhow aan gaadhayo oo aan safar ahay. Laakiin waxa uu iiga farxiyey in uu isba safar yahay oo uu u yahay meesha aan u socdo. Kolkii aan weydiiyeyna shirkadda uu rakaabka u yahayna, waxa uu ii sheegay in uu yahay dareewalka baska maanta baxaya, gaar ahaan shirkadda aan ka soo goostay tigidhka. Deegaankan Duufaan waxaa ka jira shirkado badan oo ka shaqaysta u kala gooshida magaalooyinka iyo safarka. Isna waxa uu dareewal ka yahay shirkadda aan baskeeda raacayo. Waa lama filaanka qadarka. Aniga oo u muujinaya in aan arrinkaas ku faraxsanahay, waxa aan u sheegay in aan u socdo gurigaas ku dahaadhan ranjiga buluugga ah oo aan alaabtayda ka soo qaadanayo, kadibna aanu si wada jir ah u abbaari doono maqaaxidaas ku dhow istaanka. Sidii ayaa aanu yeelnay oo uu kadinka igu sugay intii aan ku guda jiray diyaargarowga. Kadibna aan si qumaati ah jaanta ugu soo jeediyey dhanka iridda, maadaama aanay cidina soo jeedin, ruuxna ku baraarugsanayn in saaka xubin ka mid ehelka uu safar yahay. Oo taasi dhib kuma hayso qoyska reer guuraaga ah oo markoodii horeba xidhiidhka ka dhexeeya qoyska reer guuraaga ahi uu ahaa xidhiidhka ka dhexeeya dadka macaarifta ah. Macaariftu kala duwane, saaxiibo aan salaanta isku dhaafin. Waxa aanu isku raacnay maqaaxidii ku dhowid istaanka oo uu haysto mid aanu isku malcaamad ahayn oo la yidhaa Bashiir. Waa nin laf iyo dhumucba leh oo dadiisa ka weyn. Waa dabeecadda dadka miyiga ka yimaada in aysan la qabsan waxbarashada oo ay ka jecel yihiin in ay u boodaan sababta ay dadkoodu wax u bartaan. Waa farxaani, la dhaqan wanaagsan. Dadku iyo cidda taqaanaba ay ka helaan kaftankiisa turxanta la iyo sheekooyinkiisa male awaalka ah iyo marmar meerisyada bilaa qaafiyadda ah ee uu isagu u yaqaan maansada. Maqaaxidiisu waxa ay ku taallaa oo ag mara laamida ugu bulshada iyo mashquulka badan oo looga yaqaan deegaankeenna Duufaan laamida Gadhle. Waxaa dhanka galbeedka inaga soo haya istaanka shirkadda. Halkaas ayaa aanu ku wada shaahaynay ilaa intii ay ka imanayeen rakaabku oo qaadatay muddo badhsaac ah. Badhsaacaas waxa uu iga waraysanayay meesha ay ila marayso waxbarashadii iyo dareenkayga ku aadan soo dhawaashiyaha imtixaanka laga qaado ardayda sii gunaanadaysa dugsiga sare. Aniguna u siiyey warcelinta si kooban oo ah in uu warwar igu hayo si la mid ah arday kasta oo ila fasal ah. Sida oo kalena aanu dadaal ii yarayn. Warcelintana ugu sii ladhay in aan doonayo in aan ogaado arrinkii uu rabay in uu iiga warramo. Isaga oo dhoola caddaynaya waxa uu si dulka xaadis ah iigu sheegay in ay walaalo yihiin xirsi guray oo ah kibirlowgii aanu shalay isku gacan qaadnay. Yaab iyo fajac ayaa ay sababta oo ah iskuma aan aqoon iigu noqotay. Waa aan maqli jiray oo aan ka warhayay in uu la walaal yahay mid geerashle ah, se waqay indhaha kama qaadin ninkaas ay sheegan kuwa ila fasalka ah.
dhowr jeer waa ay ii sifeeyeen muuqaalkiisa duleed se sidan iguma aysan sifayn aniguna maskaxda kama sawiran waxa aan niyadda gashtay malaha in uu aari doono walaalkii maadaama aan ka awood roonaaday shalay waxa uu ii sii raaciyey in uu xalay igu arkay xafiiska shirkadda goortii aan tigidhka goosanayay islamarkaasna uu go'aansaday in uu na heshiisiiyo beri subax xirsi se maanta waa aniga safarka ah ee booqanaya reer abtigay maadaama iskuulkii la iga mamnuucay muddo bil ah waxyeellada aan geystay daraaddeed neef ayaa iga soo fuqday oo niyaddii ii degtay iskana saaray iska caabintii aan diyaarsaday aniga oo ku maqan wejigiisa oo baadhaya meesha ay iskaga ekaan karaan xirsi iyo ninkan iigu sheegay magaciisa xasan cadde ayaa aan dib ugu noqday dhacdadii shalay iyo goortii aan macallinkana dhexdhexaadinayay aniga iyo xirsi aan dhirbaaxo dheg iyo dhabaan ku qarxiyey acuudi bilaahi ayaan hoos u idhi oo aan kala sii jaan qaaday meeshii uu marneeyey hadalkiisa oo ay iigu dambaysay goortii uu ka warramayay inta shirkadood ee uu dareewalka u soo ahaa dhowr daqiiqo kadib aniga oo baalodaymoonaya waxaa iridda baska qotomisay gashaantii cabbaayad madow tafta haysa oo indhaqaaban kor ayaa ay u laashay mise waa khadiijo weligay ma arag iyada oo u lebisan sidaas bilicda miidhan ah ee ay muujisay kubkeeda dhammayska ah iyo dhexdeeda u godan sida saanadda gaar ah weligay dhaayahayga kuma sii hakin horaadkeeda soo taagan iyo luqunteeda dheer ee maariinka ah ee ay gacalsalaaxayaan timaha xariirta u jaad eg ee khamaarka ka soo hoos baxsanaya kuma cawarmin jiraalkay midabkeeda maariinka ah ee dhalaalaya waqay iyo intii aan jirayna sidaas oo kale uguma aan dhaygegin wejigeeda qorqoran daamankeeda ku dahaadhan baruurta yar ee khafiifka ah ee aad mooddo in loogu talagalay in la dhunkado iyo indhaheeda waaweyn ee uu alle ku qurxiyey xiribaha dhigaalka ballaadhan ee madowga saafiga ah aniga oo ku maqan abuurkaas ashqaraarka miidhan oo isweydiinaya sababta saaka ka baajisay dugsigii oo ay safar u tahay ayaa aan ku baraarugay xasan oo khadiija xodxodanaya oo beer la xawsanaya walaalkiis ayaan khaati ka joogay ee isagana maxaa igu diray nacdasha tabarta daran in yar kadib ayaa uu dhankayga u soo dhaqaaqay oo aan u fahmay in uu u soo hungoobay oo aanu wax jawaab ah ka helin isaga oo tiigsanaya shandadii aan watay ayaa uu si hoose iigu sheegay in aan hadda idhiidhsado kursiga hore oo aan la iiga horrayn taladiisii ayaa aan qaatay oo aan u gucleeyey kursiga dareewalka bidixda ka xiga waxa aan ka jeclaa in aanu isku fadhi noqonno khadiija balse mid walaasheed ah ayaa la socota oo aad mooddaa sida ay dadka u eegayso yidhi indhaha dadka ka ilaali khadiija in lagu soo waa walaasheed ka weyn oo 4 carruur ah laadlaadsanaysa sida khadiija uma qurux badna oo uma aruursana degganaanna haba sheegin xijaab weyn oo ku dahaadhan dhareerka carruurteeda iyo duufkooda ku hagoogan tahay ilkaha ayaa xooggaa soo taagan oo ay madowdahay gaabnaan iyo hilib ciilane ah iskugu darsamay oo iyada oo fadhida ayaa ay hiinraagaysaa afarteeda carruurta ahi u kala daran sida ay u kala weyn yihiin laakiinse waa ay ka wada yar yihiin 10 jir mid kasta duuf la dherer ah dadiisa ayaa ka soo hooraya sankiisa sida ay u madow yihiin ayaa ay calashooduna uskag madoobi ugu dhammuuqan yahay sida timahoodu u foolxun yihiin oo dhas iyo adayg iskugu darsadeen ayaa ay u qaylo iyo edabdaran yihiin oo marka aad isku eegto khadiija iyo walaasheed waxaa muuqanaya farqiga habeenka iyo maalinta balaayo kula ilko iyo carab dheeraatay qalad yahay ayaa uu shubayaa xasan oo malaha waxay ka dhabqisay qoshayaal uu rabay in uu ku afgambiyo khadiija markiiba waxaa jawiga baska qasay waa qayladeeda iyo cidhiidhiga ay ka didayso intii baska la rarayey waxaa laga fadhiyi waayey sawaxankeeda iyo maagista ay ugu hayso dareewalka oo waxa ay ku dirqiyeysaa in uu dhaqaaqo sidii in uu dharidabka u saaran yahay insha allah la soco qaybta dambe dhowan waad ku mahadsan tahay inaad dhammaysatay qaybtan nagu xidhnow oo ka mid noqo asxaabta buug maqal barta guduudan guji suulka kor u taagan riix hadad ka heshay nabadgelyo kulan dambe oo xiiso leh